يوم lagu soo gabagabeeyay tartanka horyaalka xiriirka ciyaaraha fudud kaasi oo soo qabaqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo fulinayeen xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland waxaana halkan maanta aan ku soo gabagabeynay tartanka horyaalka xiriirka ciyaaraha fudud ee dalka Soomaaliland waxaan runtii maanta halkan ka dhacay orodka 10 mitir ee garoonka Hargeysa Stadium ee tartanka xiriirka ciyaaraha fudud oo muddo bil halkan ka socday waxaan runtii maanta kaalinta koobaad ka galay kooxda gaashaan waxa kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaadna galay Abaarso School oo halkan uga hambalyeynaya macallinkooda iyo kooxdoodaba oo aad u dadaalay runtii waxa hadhown xafladda iyo munaasabadii jaayisadaha lagu bixinay insha Allah biidnillaahi kariim oo runtii goob aan runtii u aastayna lagu qaban doono waxaan u mahad celinayaa maamulka xiriirka ciyaaraha fudud garsoorka iyo cid kastoo gacan ka geysatay ma garanaysaa orodkan inuu hirgalo horyaalkan runtii waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha uu hogaaminayo wasiir Cabdirashiid Xaashi Ducaale Qambi agaasimaha guud Cabdirashiid Cadiid Yaasiin agaasimaha waaxda ciyaaraha Masar Cadnaan gudoomiyaha Olombikada oo runtii halkan uga mahad celinayo waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan orodyahanadii ka qayb galay tartankan horyaalka ciyaaraha fudud oo runtii dhammaan 5 naadi oo kala ahaa kooxda naadiga gaashaan naadiga goodir naadiga Abaarso School iyo dawladda hoose iyo degmada Maxamed Noogan naadi ka socday aad iyo aad dhamaantood ugu mahad celinaya ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Cadiid Yaasiin ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaanu ballan qaaday inay halkaasi ka sii wadi doonaan tartamada noocan oo kala qabsoomay oo soo gabagaboobay tartanka horyaalka ciyaaraha fudud oo ay ka qayb galeen kooxaha dawladda hoose Abaarso tag gaashaan goodir asluubta iyo kooxo kale oo badan ay ka qayb galeen orodada oo iyagana jaayisadiisa jimcaha dambe la bixin doono waxaana laga maalgeliyay sidoo kale cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan oo ah miisaaniyadda xukuumadda gaar ahaan miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan aad iyo aad u gacanta u hambalyeynayna gacanta mar walba madaxweynuhu naga siiyo kor u qaadidda iyo tayeynta ciyaaraha iyo dhalinyarada arrimahooda oo miisaaniyadda xukuumaddu ay bixisaa ay tahay mid aad iyo aad ugu filan isla markaana madaxweynuhu gacan weyn naga siiyo taas oo waajibaadka aanu qabanay uu aad u badan yahay dalka goboladiisa iyo degmooyinkiisa oo dhan waxaa ka hirgalay ciyaaro kala duwan oo ah kubadda kolayga kubadda cagta iyo kubadda ciyaaraha fudud intaba orodada